golaha midowga musharixiinta mucaaradka ayaa soo saaray war-saxaafeed tilmaamaya in xaalad dalku uu ku sugan yahay ay tahay mid dalku uusan xamili karin ayaguna u sababeeyay dibadhac ku yimaada doorashooyinka dalka. qoraal ka soo baxay mucaaradka ayaa hoosta ka xariiqaya in madaxda maamul goboleedyada qaar uu ka jiro culayska ugu badan ee ku yimid dibadhaca doorashada ayna doonayaan in doorashada ay u daahiyaan dana guracan oo u badan danahooda siyaasadeed ee gaarka ah maadaama aan weli la bilaabin soo saarista kuraasta baarlamaanka aqalka hoose ee dowladda federaalka Soomaaliya. dhammaan maamul goboleedyada marka laga reebo maamulka galmudug oo soo gudbiyay 5 kursi oo kaliya. mucaaradka ayaa sidoo kale sheegay inay muuqato boob siyaasadeed oo ka jira dhanka kuraasta baarlamaanka taasna ay keeni karto cakirnaan siyaasadeed iyo colays oo dalka u galo. ma ahan markii ugu horeysay oo mucaaradku uu ka hadlo kuraastan looga baqayo boobka siyaasadeed. dhanka kale waxaa jira isxulafay siyaasadeed dhanka maamul goboleedyada qaar sida Puntland iyo Jubbaland. labada madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dini iyo Axmed Madoobe ayaa maalmihii la soo dhaafay shirar gooni ah ku lahaa magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. shirarkan ayaa sida la sheegay ahaa kuwa ay ku gorfeynayaan awoodda siyaasadeed ee ay ku yeelan karaan xildhibaanada la rabo inay ka soo baxaan labada maamul goboleed ee ay ka arrimiyaan si ay ugu tartamaan. wararka ayaa sheegaya in kulamada u badan looga hadlay taageerada madaxweyne Siciid Dini oo kolkan ama sharax u taagan xilka madaxweynimo ee dowladda federaalka Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble ayaa wada dadaalo kuwaas oo safar ku kala bixinayo goobaha loo asteeyay inay ka qabsato doorashada baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuwaas oo ku kala tagayo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya si uu u dardargeliyo doorashada loo idmaday inuu qabto inkastoo xilligeeda ay dhaaftay.